runtii maantay oo ay tahay 18ka bisha 3aad 2022 waxa farxad weyn noo ah inaan isugu nimaado xafladan qiimaha badan oo runtii aan isleeyahay waa xaflad aad iyo aad muhiim u ah dabcan waxaad arkaysaan gaadiidka qiimaha badan ee nuucyo kala duwan ah oo halkan yaala oo dawladda Jaynaha ay ugu tala gashay inay ku wareejiso dawladda Soomaaliya gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aaminsanahayna runtii inuu yimiday waqti aan u baahnayn dabcan gaadiidkaanu ma ahan gaadiidkii ugu horeeyay ee dawladda Jaynaha ay ku wareejisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mana noqon doono ilaahay idankiis kii ugu dambeeyay ay ku wareejisay waxa jiray gaadiid dawladda Jaynaha ay hore ugu wareejisay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii marxaladihii aan soo dhaafnay iyo la dagaalankii qolooyinka nabadiidka argagixisada ah la dagaalankooda qayb weyn ka qaatay kuwaanuna dabcan waxaan aaminsanahay inay ayaguna qayb ka noqon doonaan kuna biiri doonaan hawsha socota ee ay wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa marka anigoon hadalka ku sii dheeraanayn inaan u mahad celiyo dawladda Jaynaha oo runtii la garab taagan dawladda Soomaaliyeed iyo qaranka ummadda Soomaaliyeedba taageero hiil iyo hoo oo runtii aan kala go'o lahayn runtii aan rijaynayana inay hore u sii socod doonto waxa kale oo rabaa sidaas oo kale inaan u mahad celiyo madaxda qaranka qaybahooda kala duwan oo inoo suurta geliyay in dhammaan waxyaabahan iyo agabkan ayaga ah maanta ay halkaan yimaadeen dabcan sabab u ah leeyahana aad iyo aad u mahadsantihiin dabcan waa qayb kamida dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo horumarinta hay'adaha amniga ee qaranka waxaan leeyahay marka aad iyo aad u mahadsantihiin ugu dambeyn waxaan u mahad celinayaa dawladda Jaynaha runtii waxaan aaminsanahay agabkaanu baahiyo weyn oo taagnaa qayb kamida inuu dabooli doono marka waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan runtii aan wax la soo koobi karo aan ahayn in muxuu ahaa ii sheegay qalabka intaan la eg ay maanta nagu wareejiyaan ayagoo dabcan canshuurta ay ka soo aruuriyeen muwaadiniintooda go'aansaday in ay ku taageeraan dawladnimada Soomaaliya si ay cagaheeda ugu istaagto